adiga hadda muqdisho maxkamad hadii lagaaga yeeray adiidi karina jirta adiga la hadlaysa maxkamad gobolka banaadir maxkamad ma leeyahay maxkamadda anaga ma ka hadlayno adiga ahaantada maxkamadda anigu aan leeyahay maxay tahay wadanku soo maamulka ma jiriya maya maxkamadda aniga arday ku mihi adiga saxaafadan arday u mihi maxkamadda gabadha aniga itiri Sheekh Sharmuud maalinkay timaada ka marqaatin qaysin hadda maaha حتى وحان سارة محكمة وحكا قبا كرت والله بالله تالله إني بين إيجاهين محكمة وحير شيخ وحير خير الله كسي محكمة وحكا قبا كرتا أو وركاس فولي كرتا إيدو كإيجي سجبرنا إن حقوق دي لا إلاليو أيان لا فوليا وعد يتاع ما اللي يسكجم هراي وركا أنيجا إيه أنت براه بلشدة الله صوف يستيمونا أنيجا إيه هذي عدي وركا مونا كريدي كرتو هكرتو. أوكي تحسوا كرتو. سؤال عن دتك أمد الصومالي ويديها ين وعربا مونا أنيجا مالا وقف إن لكانوا وحاس هراي نيلي رأي تحو منصر اللي يرى درس لا عبدي يتحو جماعة مركلة ترسم يارون وحارون أفرت صهرتي توحوا وح عقيدة وآمن سيه ما بجران توحوا وطن كان إن الدنيا دان إلهي لله معمول آمن سيه سمعوا واستقانوا تبوكته نينك أنت براه بالشدة صافر ليستشيخ شيطان أنيجي إيري أي الربا إنه قبل إسكوسك بنادر إنتي ما در الربا إنه كفا جود هرتوا وانين هرداي ما أنت صومالي إن وداد العايو وحسهلا معها حرام موكته دتكو إني وحفهمان نين وداده أو قال الله قال رسول الله دهاي إناد أفلقا هرنا وانرهاي وحسلا ما هادونتو مركا إيد لي يري هدو هو يلي إيه هدو ولا لي إيه هدو أبتي لي إيه هدو أدير لي يورتا هلا قبطة نكا هلا قبطة أنا وإنا وحقري مانها أم إيمانين إناد أديقو منكر كشقي هايو لغو يقان إيه وحدف عن الدنيا أدونا كلهين آخرنا كلهين هذا ربطنين وذا الله يري نبي محمد عليه السلام يري دينتا هلا إلاليو دقنك الصومالي أي جارك أوتو قروح بدن هلا إلاليو هذا ربطة إن هذا فلقات ديسو هرتو مقالة وحكا جرادن وركهين تاسي واتا وحاهري منصر نكلي راه منصر علول يوحي كوسي وكفكرة وتا يا جاسمان حق دورة يربحنته علول يوحي كوسي وكفكرة منصر عيال ويرada ayuu dhiiri geliyaa xalay soo nin kuma dilin Muqdisho ciyaal weerada soo qofna ma dhaawicin Munasar wuxuu ku tilmaamay inay ciyaal yihiin ciyaalku xaafadaha inay joogan cafaayad baa loo xiraa aana loo qasaa qandiir afka loo geliyaa wax ma dilaan waxna ma rabshaan nimanka uu ciyaal Munasar ku tilmaamay waa niman dadka dhiigooda banaystay Munasar wuxuu aaminsan yahay ruuxa markii la yiraahdo diinta islaamka oo meel kaga dhacay hadii la yiraahdo dilkiisu uu banaan yahay qalad uu ka aaminsan yahay laakiin ciyaal weerarnimo markii umada loo laaynayo oo umada arxan daro loo laaynayo oo hadaf la'aan umada loo dilayo wuxuu aaminsan yahay wadaninimo waa inaan hadaf lahayn Munasar ninka la yiraahdo $100 iyo $150 dadka ku caaya $100 iyo $150 ayuu dadka ku caaya Munasar dadka Muqdisho jooga u dira maanta aniga hadii la yiraahdo warbixin ka sameey waa tuug warbixintaas baan ku haynaa isbaariliista waaye waxay dhahmo wiyahay moogta magaalada balaaya joogto hadii la yiraahdo waa saaxir xarumo oo dadku ku daaweeyo leeyahay oo faalka dadku ugu dhigo u gudbinaya Munasar marka waxa weeyaan Munasar wuxuu ku hadlo horta nin dabagala ma aha saxaafada shuruudeedan uma bilawna aniga dad badana oo saxaafada ka tirsan agaasimo hadda meeshan joogo kale saaxiibana abwaan goore saaxiibana saxaafadu shuruucay leedahay qofka aad rabto inaad warbixin ka sameeyso midalan aniga ayaan agaasimaha adigoo page-kaagu ku kala gacsan yahay agaasimaha waxa kaaga soo gulbiyay warbixin waxaan ku uriniyo waqtiga waan ka iibsanaya ninkaas raba inaad jafto waxa wadanka jara raba inaad ku sheego mugto wadaad aan wax qariyamihi waxaan la socdaa curfiga iyo wax jira waan ogahay maanta waa ka warqaba warbixintaadan gudbinaya Munasar waa aqbalaya saxaafada xaqeeda maxaa kamida ana ku sheegaya daad xataa qaanin waxa kamida inaan aniga inta soo waco aan ku weydiiyaan ku yiraahdo niihow agaasimaha inaan waco waay
aniga beej kale beejkaygu waa kala kacsan yahay $150 ii soo dirtay ileesha caloolan ka fikiraya mogta wixii ka hooseeya agaasimaha inaan waco ayaa saxaafadda ku qoran oo aan weydiiyo xogtaan inaan agaasimaha weydiiyo waaye anigoo diinteeda ilaashanaya anigoo sharafkayga ilaalinaya anigoo sharafka reerkayga ilaalinaya munasar muxuu ilaaliyaa munasar dadku caaya waa cudbaahiya la waxaa dhahday munasar wuxuu dadka ku caaya $150 adigu taas cadeen mu haysaa meel $150 ku qaatay waa u haya munasar dad ducaadahu aniga igu horeeyay oo u gafaanaya baraha bulshada yaalaan ma dadku u gafay marabno maya waa ku sheegay dad aniga igu horeeyay ducaada horta anigu baraha bulshada waxaan u galay waxaan arkay dad badan oo ducaadaho ummadda Soomaaliyeed wax muuqdo oo itusi itaabsi u qabta dad masaajida dhisay dadka xanuunsan dibadaha u diro dad agoomaha gacanta ku haya oo maanta hadii Ilaahay daayo 10 sano ama 5 sano soo socoto dad masaajida inta fadhiista wax akhri kara soo wada waxa kamid ah Sheekh Maxamed Macalin Abshir kamid ah habeen iyo maalin wuxuu u taagan yahay inuu waqtigiisa iyo aqoontiisa iyo diintiisa iyo ummadiisa inuu anfaco waxaan aragnay rag baraha bulshada kamid oo ka raaraca waxa marka waxa dulmi naqatay in maalin walba nin wadaada inta mujahal la qabsado laga aamuso waxaan way baabaayaan sheekh Shantaayana Ilaahay sabab kaga dhigaya ruuxi marka qofka cirdigiisa u gafa waan kala baxayna markaad ruux muslima sharaftiisa iyo cirdigiisa u gafto 80 jeedala meel ku taal waa tuug 80 jeed waxa laga rabaa marqaati saariq way hadaa tira qofkan shareecadu cirdiga ilaalisa marqaatiya laga rabaa hadii kale duudkaaga diyaarinay sharmuud waaya tiri waxa laga rabaa والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فجلدوهم 80 جلدة 8 جلدة meel ku taalo inaad inta camera isku aadiso ay aad qol isku soo xirto ay aad maalin walbo aad ka samaysa 5 xalaqo 5 fadhi sheekh sharmuud sheekh tuug sheekh sixir sheekh faalalow maanta Soomaali waxa Soomaali maanta ay u doorsoon ay Soomaali ilaashatay isha saxaafada ku jirtaa maxay ilaashatay gabar aab abtiyaashid aab adeeriyaashid aab wixii ku hooyo ahay aab wixii ku aabahay wala shay aniga maalin walba nin ajnabi ma aflaga dhigi karto kuma dhici karto adduunyadana islaama joogeyno aniga gabdhaha ila dhashay inay inta camera isku aadiyaan ay qol isku soo xiraan inay maalin walba nin ajnabi ka ah ee aan waxba kala dhaxaynin inay u gafto wala shay ma sameey karto waxaan rabaa marka Soomaali maanta maxaa u doorsan dhaqan iyo diin الله رب العالمين باديday inuu madan lacaayo munasar wuxuu kugu eedeynayay adi hadda ka hor wareys aad bixiso oo dhahday qofkii warkigan maqli waayo oo social media dhaqan xumada ka joojin waayo maxkamad baa isla korinaa marka munasar wuxuu dhahay sheekhan waxa jirta awood kale oo qarsan oo ku tashanayo taas maxaa uga jawaabtaa marka in awoodka aad ku qarsan tahay oo jirto wadanka maxkamad kama jirto miyaadu waday warka munasar la soo booday Muqdisho aad joogtaa Muqdisho maxkamad kama jirto adiga hadda Muqdisho maxkamad hadii lagaaga yeeray adiidi karina jirta adiga la hadlaysa maxkamad gobolka banaadir maxkamad ma leeyahay maxkamadaas anaga ma ka hadlayno adiga ahaantada maxkamada anigu aan leeyahay maxay tahay wadanku soo maamulka ma jiriya maxkamada aniga arday ku mihi adiga saxaafadan arday u mihi maxkamada gabadha aniga itiri Sheekh Sharmuud maalinkay timaada ka marqaatin qaysin hadda maaha hatta waxaan saara maxkamad wax ka qaba karta والله بالله تالله إني بيني جاهين محكمة وحير شيخ وحير خير الله كسي محكمة وحكق بكرتا أو وركاس فولي كرتا إيدو كإيجي سجبرنا إن حقوق دي لا إلاليو أيان لا فوليا وعد يتع ما اللي يسكجمهراي وركا أنا إن تم براه بلشدة الله صوف يستيمونا أنا إن هذي عدي وركا مونا كريدي كرتا هكرتو اوكي taas waa gartay su'aasha aan dadka umada Soomaaliyeed weydiiyayaan waxa rabaa muna aniga meelan ugu gafay in la keeno saxaafadu waxay ka shaqeysaa dabka in la shido anaga dad muslimiin nahay maxaan u diiday inaan qeyrka ka shaqeyno inaan wanaaga ka shaqeyno inaan dhahno cidna ku xad gudmin fiiri YouTube burleyda Soomaaliya oo dhan nin wadaad oo leeyahay idil Umar ka hadlay ay yiri gabadhan wadaadkooda kaga daran tahay walaalkii waa ugu mahad celinaya idil Umar ayaa ka hadlay qofkay wali kama hadlin maxaa loo waayay gabadha qof yiraahdo war wadaadka xukuumaadka Soomaalidu midna ogaaw
wadaadada wax xurmahay u hayaan male bilaashi waxay u leeyihiin diinta waan jecelnahay adeerow diinta haddaad jeceshahay diinta waxaa wakiil ka ah culummada booskii nebi maxamed calayhi salaam iyo abubakar iyo cumar iyo cuthmaan iyo cali ku jiraan ummadda indhahooduna waa culummada waa ducaada haddaad diinta ilaahay jeceshahay culummada garab istaag ani mujaamalo mar raba moogtahay nin weynoo muslimaan ahay anigu waxaan ku dhawaaqay dhaqan iyo diin in la ilaaliye maxaa keen in hablaha laysoo adeegsado maxaa keen inay fanaaniintu maalin walba iga daba raaracaan waxaa soo haray nin la yidhahdo toxow munasar iyo idilayare iyo dirisle cabdi iyo toxow iyo jameyka markii la tartarsimeeyaa roon waxaa roon afarta soo hartay toxow wax caqiidaa uu aaminsan yahay maba jiraan toxow waddankan in adduunyadan ilaahay lala maamulo aaminsan yahay soomaalidu waa istaqaan horta bogtahay soomaalidu miimidaa la isku yaqaanaa aniga maanta waxaan ahay wadaad afkaartiisu ay caddahay ay diinta islaamka jecel inaan ahay ay dhaqanka iyo diinta ku dhegan inaan ahay cid walba og soo ma jeedid toxow iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciinu xataa ma fahamsana maxaa yeelay iyaaka waa mafcuulu bihi nacbudu waa ficil mudaaricu saxiixu laakhira culimmadii waxna soo bartaa laha cafiyo qofka muslimka maalin walbo 5 jeer iyo ka badan intuu ilaahay hor istaago ayuu yiraahdaa iyaaka nacbudu waxaan caabudaynaa iyaaka adig uun wanastaciinu iyaaka ilaahow kaalmada adigan ku weydiisanaynaa dheefta adigaa bixiya dhibkana adigaa qaada toxow adduunkan in alla lala maamulo oo wadaad 98 dhintay oo adduunka la maamulo aaminsan yahay toxow ninkou maanta rabo inuu caayana waa nin wadaado caqiide iyo afkaar aaminsan waaye ya waxaan been ahayna kama hadalin dulmiga maanta baraha bulshada ka jira waxaa ka mid a dadka diinta u ilaaliyaa la la'yahay mogta garsoorka gobolka banaadir wuxuu ku fashilmay inuu dadka diinta iyo dhaqanka u ilaaliyo toxow maanta haddii inta loo yeeray la yidhaahdo sheekh shantaay masaajidii laga soo iriye keen intuu ka keeni rabiya ma hayo mana jiri aniga mas laga soo iriyay waxa kale haray wuxuu yiri oo kale waa faalalow hadii la yiraahdo keen cidda u tagtay u faalisay iyo goobta wax ku faaliyay ayaa laga rabaa ma keeni kariyo maahan mogta adoo dhahay saxafi ana inaad dah gadaashiis ka soo hadasho marka waxa la rabaa dadka dad baa la dhashay inay qabsadaan dadkooda maalin horena halkan waxaan kala hadlay haweenka Soomaaliyeed maantan war raba inaan ka faa'iideysto haweenka Soomaaliyeed war walaashay waa xataa gabar walaashay oo aan jeclahay war ninka ku xamaalo war markuu guriga ka baxay la balan ninkaaga war ninkaaga waxa dhahdaa war afkaaga qabso waqulu linaasi husnan niyo waxa ilaahay raali ka yahay ku hadal hadii kala afkaaga qabso war nimankan dadka iska caynaya ay ducaada majaha ka haysta war haweenka ay qabaan iyo gabdhaha la dhashay iyo dadka dhalay war dadka gacanta ka qabsada war dadku dad baa dhalay dadka qabsada alla yiri nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam yiri wax ka sharaf badan oo bulsho muslima loo sheego anigu ma aqaano maxaa nin alla yiri ku dhahay maxaa ku daba dhig adig ani walay dhali kara hadda liicaato waxba igama haleen aniga liicaato waxba igama haleen liicaato ila hadlay waa nin heer magaala waa nin aqoon-yahana waa nin waxyaabaha qaar ka maaragtay iska ilaalinaya ay aan isku quurin dhooqo iyo sharaf xumo inuu majaha gasto haddaad youtuber tahay ha xad gudbin qofka naceebkiisa wuxuu ku keenayaa inaad diintaada ilaashawayso hadda maanta dada aniga warkooda iga gudbay waxaa inaan runta ku sheeg mogta wuxuu noo sheegaya waa carabi wax salan maaha diinta horta ma sheekh shantaaya lama Soomaaliyo dhan ay ka dhaxaysaa ya Soomaaliyo dhan ay ka dhaxaysaa diinta adeero anugu hadda dhintay diintu waa ilaashan tahay wax umada bara iyo wax difaaca iyo wax ilaaliya iyo wax xurmeeya ee helayaan hadda noolahana way joogan Muqdisho joogan Hargeysa joogan Kismaayo joogan Nairobi joogan dunida meel ayna joogin ma jiro dadan diinta Ilaahay u ilaashaneen laakiin ina diinta Ilaahay ku cidab daraato adoo sheekh shantaay u jeedo riskiga aad ku galaysa iska fiiri aqliga ha shaqeey